runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado carwada bandhigga buugaagta Muqdisho oo aan ku arkay buugaag fara badan oo aad u kala duwan oo ay qoreen dhalinyaro aqoonyahan abwaaninta Soomaaliyeed oo xigmadooda iyo suugaantoodii lagu soo ururiyay waxay ka turjumaysaa dhiirina gelinaysaa dhalinyaradu inay ku tartamaan aqoonta in qalinka la isticmaalo halkii qoriga laga isticmaalayay inay dhalinyaradu tartan u galaan ku hirtaan qof waliba afkaarta faraha badan ee ku duugan ee nabadgelyada wax ka taraysa horumarka wax ka taraysa dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed wax ka taraysa ay ku soo bandhigeen kuna soo bandhigayaan waxaan aaminsanahay inay tahay tusaale aad u fiican waan ku hambalyeeynaya waa ku bogaadinaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee buugaagta qortay ee ku soo bandhigtay maanta bandhigan waxaan leeyahay kuwa kalena ha ku soo hirtaan ha isticmaalaan qalinka dalkooda ha aaminaan aqoonta iyo qalinku waa waxa ummadi horumar ku gaadho waa waxa ay dalkeeda dib ugu dhisi karto waa waxa ay ummaddu isku dhaxgali karto waayo markaad suugaanta wax ka qorto markaad dhinacyada kala duwan ee cilmiga wax ka qorto waxaad helaysaa cid bah ku ah waxay keenaysaa isdhaxgalka gobollada kala duwan iyo kala duwanaanshaha bulshada waxay meesha ka saaraysaa qabiilkii marka waa fursad aad u fiican xukuumadda nolol iyo nabad way dhiiri gelinaysaa ilaahay idamkiisa qalinku inuu noqdo hormuudka dalkan hogaamiya ee uusan noqonin qorigu in nabad laga shaqeeyo nabaddu ay noqoto taagda ummadda isdhaxgalka aad baan ugu faraxsanahay waa ku mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh